In ka badan 550 haween ka kala yimid gobolada kala duwan ee dalka ayaa ka faa'iideystay qaliinada isku furanka haweenka ee loo yaqaano fistulada isla markaana lagu sameeyay isbitaalka Dayniile ee magaalada Muqdisho. Ololahan oo ay wado wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo kaashanaysa maamulka isbitaalka Dayniile ayaa loogu talagalay in haweenka ku nool gobolada dalka ay ka faa'iideystaan daaweyntan lacag la'aanta ah ee loo sameynayo. Qaar ka mid ah haweenka loo sameynayo qaliinkan ayaa sheegay in cudurkan uu u geystay dhibaatooyin badan oo noloshooda saameeyay kuna xiray guri hadda si ay ka bogsadeen. Halka imaanayay hadda farqi dheer u dhaxeeyo kaadeystii saarada leega habeeyay aad iyo aadaan ugu baahnay maasha Allah waa fiicanahay kii soo diray kii habeeyay baqeer Allah siiyo waana fiicanahay sidii shalay imaantana farqi weyn u dhaxeeyo kaadeystii saarada naga socotay haddana maasha Allah waxaan nahay